Dalka Shiinaha ma doonayo in dhaqaalaha kaliya kula tartamo reer galbeedka iyo Mareykanka. Wuxuu kaloo doonayaa inuu noqdo awood xukun oo babacdhigi karta reer galbeedka. Wuxuuna u haystaa malaayiin basaasiin ah oo dunida u kala joogta. Wuxuuna 8% ka helaa xaddidaadda shaqooyinka hal-abuurka leh dalka Shiinaha. Ku soo dhawaada daawadayaal warbixin ku saabsan sirdoonka dalka Shiinaha. Sirdoonka Shiinaha taariikhdiisa casriga ah waxay bilaabanaysaa 1920kii, waxaana aasaasay Chiang Kai-shek, ninkaas oo ahaa ninkii hogaaminayay ololihii mideynta Shiinaha, isla markaana ka noqday dalkaasi madaxweynihii ugu horeeyay ee sanadii 1928. Laakiin dhisitaanka heykalka muuqda ee adeegga sirdoon inuu dalka yeesho waxaa fikradaasi lahaa ninkii Shuuciga ahaa ee la oran jiray Chiang Kai-shek, waxaana markaas loo bixiyay waaxda arrimaha bulshada. Maadaama adeegga sirdoonka Shiinuhu uu cusbaa, wuxuu muddo badan ku koobnaa dalka Shiinaha gudihiisa, waxaana u suurta gashay inuu shaqooyinka adeegga sirdoonka dalka dibadiisa bilaabo kadib markuu dalka Shiinuhu dhistay waaxda baaritaanka dhexe, taasoo sabab u ahayd isbeddelkii weynaa ee uu gaaray dalka Shiinaha. Madaxweyne Deng Xiaoping markii uu talada dalkaasi qabtay, waxaa dowladda Shiinaha u bilowday casrigii dahabiga ahaa ee dhinaca sirdoonka, wuxuuna madaxweyne Deng Xiaoping bilaabay dhismaha wasaaradda amniga ee magaceeda loo soo gaabiyay MSS, waana goobta ugu sarreysa ee looga arrimiyo dhammaan adeegga sirdoon ee dalka Shiinaha, isla markaana ay hoos tagaan dhammaan hay'adaha sirdoon ee rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahaynba. Marka laga reebo ciidanka xoogga ee dalka Shiinaha, wasaaradda amniga ee MSS iyadoo ah maamulka ugu sarreeya ee sirdoon ee dalka Shiinuhu leeyahay, waxay ku tiirsan tahay unugyada shaqo ee Danwin. Unugyadaasna waxay qabtaan isku xirka dowladda Shiinaha iyo shacabka. Sidoo kale, ururka Danwin waxa uu leeyahay qayb amni oo gacanta ku haysa dhammaan feelalka dadka xubnaha ka ah, taariikhda qoyskooda iyo jihintooda siyaasadeed. Sidaas awgeed, shuruudaha lagama maarmaanka ah inaad ku biirto ururkaas ayaa ah inaad mar waliba oo lagu baahdo aad diyaar u noqotaa u adeegidda danaha dalka, iyo weliba inaad soo gudbiso warbixin waliba oo halis ku ah, xataa haddii ay ku lug leeyihiin ama ay ku jiraan shakhsiyaad ka agdhow sida ardayda waxbarashada kula dhigata, asxaabtaada khaaska ah iyo xubnaha qoyskiinaba. Waxay kaloo wasaaradda amniga guud ee dalka Shiinaha ku shaqo leedahay qaramaynta iyo shaqaalaysiinta basaasiinta xirfadaha hoose leh. Ujeedaduna ay tahay ururinta warbixino dheeraad ah si ay u taxliiliyaan una helaan natiijooyin wax ku ool leh, iyadoo markii adeegsanaya dad badan isla hal howl wada fulinaya isla markiiba. Dhanka kale, sirdoonka milatariga waxa ay shaqadiisu tahay in uu basaaso tiknoolajiyadaha shisheeye ee casriga ah si loo horumariyo ciidanka, sidoo kale aruurinta macluumaadka la xiriira xuduudaha iyadoo loo marayo basaasiintooda u jooga Vietnam, Macau, Taiwan iyo Hong Kong. Wuxuu kaloo sirdoonka milatarigu ka shaqeeyaa heshiiska qandaraasyada milatari ee Shiinuhu ugu iibinayo hubkiisa adduunka oo dhan iyo qaramaynta basaasiinta shisheeye. Waxayna leeyihiin sirdoonka Shiinuhu xafiis loogu magac daray Xafiiska 7 oo lagu qabto shaqooyinka sirdoonka ee dhinaca xarkaha internetka si uu u qarameeyo kumanaan burcad internetka ah kuwaasoo ka howlgalaya waddanka dibaddiisa. Waxayna hawshooda ugu muhiimsan tahay ururinta warbixinada, la socodka adeegyada baraha bulshada, iyo ku faafinta wararka been abuurka ah wadamada shisheeye ay ku nool yihiin. Way kala duwan yihiin qalabkooda, sidoo kale way kala duwan yihiin shaqadooda. Laakiin waxaa la yaab noqotay in ku dhawaad 70% shaqooyinka sirdoon ee Shiinuhu ay fuliyaan hay'ado aan sirdoonka ahayn sida jaamacadaha, warbaahinta iyo shirkadaha. Waxayna dalka Shiinuhu malaayiin dollar ku bixiyaan xaddidaadda hal-abuurka tiknoolajiyadda casriga ah, waxayna u dhacaan xogaha shirkadaha iyagoo markaasi qalabka shirkadaha kale soo saaraan soo guuriyaan, kadibna kula tartamaan goobaha ganacsiga. Sidoo kale, shirkadaha waaweyn ee caalamiga ah ayay macaamiishooda ka weecsadaan maadaama ay soo bandhigaan isla qalabkii oo qiimo jaban. Wuxuuna dalka Shiinaha 8% ka helaa wadarta guud ee wax soo saarka dalka, xaddidaadda shaqooyinka hal-abuurka leh iyo koobiyeynta softweerada ajnabiga ah. Wakaaladda Difaaca Qaranka, Sayniska, Tiknoolajiyadda iyo Warshadaha Shiinaha ee SUSTAIN waxayna u dhigantaa wakaaladda DARPA ee dalka Mareykanka. Wakaaladahaas oo sirdoonkoodu aanu ka fogeyn markasta ishana ku haya wakaaladaha wararka ee dalalkooda, iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada, taasoo hadafkeedu yahay la socoshada ardayda qurbaha waxbarashada u aadaya, isla markaana si basaasnimo ah loo qarameeyo. Si loo qarameeyo ardayda qurbaha aadaya ee dalka Shiinaha, waxaa looga baahan yahay in uu gaaray ilaa heer jaamacadeed iyo inuu weligii waddanka dibaddiisa safar u bixin, waana in aad ku hadashaa wax ka badan hal luqad. Laakiin haddii aadan aqoonin wax ka caawinaya sirdoonka Shiinaha iyagoo markaasi bixinaya koorsooyin bilaash ah. Saddexaad waa in aad daacad u tahay shacabka iyo xisbiga Shuuciga ah ee Shiinaha.
haddii aad isku daydid inaad ka hor timaadid, waxaa kula xisaabtamaya oon arrimahaaga u xilsaaran xafiiska amniga ee gudaha dalka ee loo yaqaano xafiiska sagaalaad. xafiiskaas oo ay shaqadiisu tahay ka hortagidda ciddii loo arkaa in ay halis ku tahay xisbiga shuuciga. sarkaal kasta oo Shiinaha waxa uu hogaaminayaa xubno ku kala faafsan dunida dacaladeeda oo aan tiro yareen. guushii ugu weyneed ee sirdoon ee taariikhda abid Shiinuhu ka gaaray dalka Mareykanka waxay ahayd Larry Wu-Tang-Shin oo ahaa nin haysta dhalashada dalka Mareykanka, laakiin wuxuu asal ahaan ka soo jeeday dalka Shiinaha, kaasoo la shaqaynayay sirdoonka Mareykanka, isla markaana ahaa basaas u shaqeeya dowladda Shiinaha muddo gaaraysa 30 sano si qarsoodi ah, ilaa arrinkan ay ka ogaadeen dowladda Mareykanka soona qabteen sanadii 1984, isagoo markaana la xiray wuxuuna isku dhex dilay xabsiga dhexdiisa 2 sano kadib. hadafka uu ka leeyahay basaasnimada Shiinaha ayaa ah inuu helo tiknoolajiyadii ugu dambeysay ee casri ah, si uu u helana Shiinuhu u maraayo hababka aan sharciga sirdoonka ahayn sida isweydaarsiga cilmiga iyo shirkadaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba. waxa uu kaloo dalka Shiinaha u leeyahay higsi uu rabo inuu gaaro, kaasoo ah Made in China 2025. si uu u gaarana waxa uu qarameeyay burcad internet si ay u jabsadaan naqshadaha farsamo ee shirkadaha Mareykanka iyo kuwa reer Yurub, waxayna burcadda Shiinuhu xoogga saaraan jabsashada shirkadaha dawooyinka, biraha iyo gaadiidka si uu ugu horumariyo shirkadaha gudaha Shiinaha loona gaaro higsiga Made in China 2025. wuxuu kaloo Shiinuhu ku guuleystay inuu qarameeyo sarkaal horey ugu shaqayn jiray CIA-da, kaasoo ugu suurageliyay inay Shiinuhu jabsadaan waaxda borotokoolka amniga iyo xiriirka hoose. jabsashadaasna ay ku heleen xogo badan ay ka mid tahay basaasiinta Mareykanka ugu shaqeeya gudaha China, waxayna Shiinuhu 20 ka mid ah basaasiintaasi ku fuliyeen dil toogasho, waxayna arrintaasi Mareykanka ku noqotay dhabarjab aad u weyn.